ama noo tacriifiyo waxa horta as-sawm soonka waxa la yiraahdo luqatan wa sharcan shagaan markuu bilaabayna insha Allah mashaayixdu kullee waqtiga ayaa ciriiri ku ah waxa laga yaabaa inayn aad fursad u helan u sii faahfaahiyaan waqtiga oo ciriiri ah marka fal tafadal mashkuur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مركلة iyo kulanti wanaagsan walaalayaal soonku luqatan waxaa la yidhaahdaa al-imsaak afhaysi ama afxirasha ayaa la yidhaahdaa ومنه قوله تبارك وتعالى إني نذرت للرحمن صوما وحان إلهي يقول ندري إن أن أفهيستو أو أن أفك وحبقلين وحنا عنين وحنا عبين مركا اللغة العربية صوم وحالقو يراهدا أفهيسي بالقو يراهدا وشرعنا وإمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص سدا وحاكو تعريفيي الإمام النبوي في المجموع معناه دون وحاوية وأفهيسي أما إن وحب الله عنين أفهيسي قارهانات شيء قار أهنا لقى أفهيستو أو وحي وحفورين إيه حلي قار أهنا لأفهيستو أو حلي waaga barigiisa iyo intuu gobolka ka dhacaya min shakhsin makhsuusna waa xilliga waa qofka uu soonka uu ku waajibay sharcanna soonka sidaasaa la yidhaahdaa soonku magacyo dhowra ayuu leeyahay oo shareecadeennu ay u sheegtay waxaa ka mid ah as-sawm ama as-siyaam waxaa kaloo ka mid a magaciisa la yidhaahdaa sabr maxaa yeelay xadiid baa ka asaxay nabiga sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay sawmu shahri sabr bisha sabirka oo la soomo oo bisha ramadaanka uu ka wado waxaa kaloo soonka la yidhaahdaa siyaaxa oo aayaddii qur-aanka ahayd attaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna assaa'ixuuna waa soonka weeye sidoo kale fii suurati taxriim ilaahay waa kan uu leeyahay qaanitaatin caabidaatin saa'ixaatin marka siyaaxana waa la yidhaahdaa soonka noocaaseen tacriifkiisa aan ka hadlayno ilaa dhowr qaybood buu u qeybsamaa midkan faradka ahee shareecadeennu ay waajibisay ee qof walboo qaangaara sidaan u tegi doono inuu sanadkii bishiiba bisha ramadaan mar sooma laga rabo waxaa la yidhaahdaa asiyaamu lmafruud soon kaleo waxaa jira kafaarada qofka markii kafaara gud laga rabo soon ku waajibay baa jira soon kale oo waxaa jira la yidhaahdo magaciisa asawmu alwaajibu binnadri qofka markuu isagu isku waajibiyo oo uu ku nadro inuu soomo isna waa qeyb kale soon kale oo waxaa jira qado la yidhaahdo ama midkaa sharciga lafsadiisa adaa-an iyo qadaa'an loo kala saari karaa ama waa la kala qaadi karaa labadoodaba soonna waa soon tatawuc ahoo bishiiba inaad 3 maalmood ka soonto sabtidii isniinta iyo khamiista inaad soonto wahaakada maalinka carafa inaad soonto ciddii aan carafo markaad joogin soonkaasna waxaa la yidhaahdaa soon tatawuc baa la yidhaahdaa faa'ida soonka waagiisii hore ama fii awali lislaam waxaa weeye habeenkii baa la afxiran jiray cishaha inta marka la tukado ayay soonka uu bilaaban jiray ama markii la seexdo labadooda hadba kii soo hormaro ayaa ay ka bilaaban jiray in laga afhaysto cuntada iyo cabitaanka iyo jimaaca kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ummadda u fududeeyeyo soo dejiyey ama arrinkaa isagaa nasakhay uxila lakum leylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum iyo qowluhu tacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط اlaswad adiladaasoo dhan ayaa lagu nasakhay oo waxaa loo raray habeenkii oo dhan qofka inuu uusan soonayn danihiisana uu qabsan karo laakiin marka uu fajar saadiq uu dhasho ay bilaabanayso afhaysashadii hada wallahu aclam
jazaaka allahu khayran sheekh cabdallah sabqu lisaan sheekh maxamuud baan idhi maxaa yeele maxamuudyada ugu badan raalla haada waa sheekh cabdallah xambale abu yuusuf xafidahullah jazaaka allahu khayran haddana waxaan u gudbin doonaa sheekh maxamuud sheekh cabdiraxmaan abu ayuub bal waktiga soonka u waajibayo iyo xigmadda ka dambaysa kolleyba annagu muslimiin baan nahay ama xigmadda garo ama ha garanin waa inaad awaamirta ilaahiga qaadato laakiin haddana ma reebana in xigmada culamaa u rabbaaniyiin intay baareen bal xigmada waa qofka iimaankiisa usii siyaadi kara marka in sha allah falyatafadal sheekh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين intaa kadib waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha dhegaysanaya ama daawanaya muxaadaradan ku saabsan amaan u caqidnay bishan barakaysanee ramadaanka ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'ihi اlxusna wa sifaatihi اlculyaa ramadaankan in ramadaanna soo socda inuu na gaarsiiyo isla markaana uu naga aqbalo camalka wanaagsanna uu inagu toosiyo intaa kadib amaa qeybta ku saabsan soonka makaanada uu diinta islaamka ka joogo waxa weeye iyo waktiga la waajibiyey shaki kuma jiro waa rukni ka mid a min arkaan اlislaam bal waxaan dhihi karna waa rukniga afaraad ee arkaanta islaamka kama habata fi الصaxiixayn min xadiiثi cabdullahi bni cumar bn khaaab radi allahu canhu nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yihi bunya اlislaamu calىa khamsa islaamka waxaa lagu dul dhisay shan tiir tan hore waa shahaadaة an laa ilaha ila اllah wa ana moxameda rasuulu اllah tan labaad waa iqaami الsalaa salaada oo loogo tan saddexaad waa itaai zaka zakadoo la bixiyo kan afaraadna waxa weeye waa sawmi ramadaan ramadaanka oo la soomo kan labaadna waa xaji اlbeyt amaa fadligiisa sheekha in sha allah inooga hadli doono laakiin ramadaanka wuxuu gaaray heer kama habata fi الصaxiixayn min xadiiثi abi hurayra ayضا nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam inuu yihi ilaahay subxaanaه wa tacala wuxuu yihi kulu camal bni aadam lahu ila الصiyaam camalka ina aadan uu qabanayo o dhan isagaa iskale soonka marka laga reebo fainahu lii isaga anaa iskale ilaahay naftiisa ayuu u idaafeeyey tashriifa wa tacdiima lihada الشhahr الmubaarak ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu farad yeelay sanadkii labaad ee hijrada nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu soomay 9 sano ramadaanka 9 ka mid ayuu soomay sanadkii tobnaad intuusan usoo gelinna waatay geerida u timid amaa xigmada ku jirta soonka in la sharciyeeyo xikan badan baa ku jirto ilaahay uu garanaya caza wajala laakiin haddaan 5 ku soo ururiya ama 4 ka mid ah siyaamku waa wasiilo ku gaarsiinayso taqwada ilaahay maxaa yeelay qofka marka uu sooman yahay oo uu baahan yahay oo wuxuu la mid noqonayaa ama uu shabahayaa nowcan ma malaa'igta ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamay laa yacsuuna allaha ma amara wayafcaluuna ma yu'maruun wuxuu ilaahay subxaanaه wa tacaala malaa'igta uu ka dhigay khalqi min khalqihi jandu min junuudi oon waxna cunayn waxna cabayn waxay quudanayaan waa maxay waa tasbiix iyo taxmiid sidaa daraaddeed maalinka aad sooman tahay waxaa miraha ugu weynaad ka guranaysa waxa weeye ilaahay taqwadiisa sida ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu soonka waajibnimadiisa uu tilmaamay wuxuu yihi lacalakum tattaquun waxaad mudan tihiin inaad taqwo ka gurataan ilaahay subxaanaه wa tacaala taqwadiisa ayaa qalbigaaga ku weynaanayso sidaa daraaddeed buu nebiga wuxuu faray dhallinyarada inay soomaan haddaysan guurka xalaasha ah aysan u suuro gelin sababtoy tahay markuu yihi yaa macshar shabaab man istaطaaca minkum اlba'ata falyatazawaj fainahu agadu lilbasr waaxsan lilfarj wuxuu yihi waman lam yastaطic facalayhi bالsawm fainahu lahu wijaa markaa soonkii wuxuu noqday taqwada qofka uu ka helaya waxay ku dhalinaysaa inay shahwadii gubato mar haddii waddo xalaal oo la mariyo la waaye inaysan xaaraanta marin midda labaad qofka sooman naftiisa wuxuu ku laylinayaa shayga la yidhaahdo dabط الnafs nafta inuu ka adkaado nafta oo laga adkaadaana waa wasiila min alwasaa'il oo gaayada ugu weyn oo ilahay radihiisa lagu gaaro ka mid ah sidaa daraaddeed buu ilaahay subxaanaه wa tacaala nafta oo laga adkaada in badan qur-aanka u ammaanay wuxuu yihi allah subxaanaه wa tacaala qofka ilaahay ka cabsado subxaanaه wa tacaala naftiisana waxay rabta ka celiyaa faina aljannata hiya alma'wa arrinka saddexaad waxa weeye soonka qofka muslimka wuxuu ka dhigayaa xikamtiisa ka mid a qofka inuu dareemo xanuunka iyo gaajadu dhibka ay leedahay oo walaalihii ay dareensan yihiin bisha ramadaanka kayrkeeda ay soomanaayeen sababtoy tahay sideedaba waxyaale waxaa jiro qofka bini aadamka inuu isagii ay qabato mooyaan uusan garan karin soomaalida waxay tidhahdaa calool dhergan calool baahan kama naxdo
macnaheedu waxa weeye hadday baahidii xanuunkeedii aad dareentay waad u garaabaysaa walaalkaa baahan laakiin haddii qofkii uu baahan yahay in lagu sheega baahi waxay tahayna aadan aqoon dhib bay kugu noqon inaad fahanto ugu dambayntii soonku qofka wuxuu ka dhigayaa ama uu siinayaa taskiyatu nafs waa midda ilaahay subxaanaه watacaala u ammaanay uu yihi qad aflaxa man zakaaha qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun taskiyadu waa shay laga maarmaana sidaa daraaddeed akhlaaqdii radiilada ahayd oo ahayd hunguri weyninka iyo imaanyugnimada iyo cunto ka daba orodka iyo cunto ka sheekaynta buu ka go-aya wuxuu noqonayaa qof nadiif ah oo rabbi subxaanahu wa tacaala ku xihan allah waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi اlxusnaa wa sifaatihi اlculyaa mar labaad inuu naga dhigo dadkaas soomay xikamta iyo miraha qiimaha badanna ka gurtay aquulu maa tasmacuun wajazaakum allahu khayra jazaak allahu khayra sheekh ilaahay miisaanka xasanaadka ha yeelo haddana mataa yajibu sawmu iyo fadliga soomka sheekh abudalxa ayaan u gudbinaynaa xafidahum allahu jamiica بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد furfurasho iyo duco iyo mahadcelin culammadii iga horreysay ayaan ku kabaya oon ku raacsanahay soonka muxuu ku waajibaa soonku wuxuu ku waajibaa laba arrimood oo keli ah awalan waxaan ogaanaynaa bisha islaamku waa laba ayadana mid un maalmaha ka mida kamaa fii صaxiixi muslim nabigu salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yihi الshahru haakada wahaakada wahaakada saddex jeer ayuu labadiisa gacmood nabigu isku dhejiyey sal ly slam oo macnaheedu ay tahay bishu waxay noqon kartaa toban maalmood mar labaad wuxuu yihi الshahru haakada wahaakada markaasuu nabigu suulka laabay markii saddexaad taasoo macnaheedu ay tahay bishu waxay ku dhammaan kartaa 29 beri taa waa midda koobaad oo bishu ama waa 30 ama waa 20 haddaba maxay ku sugnaan kartaa bisha ramadaan in la soomo waxay ku sugnaan kartaa in la arko bishii ramadaan oo bisha shacbaan ee hadda aanu ku jiro bisha shacbaan inay ku dhammaato 29 kadibna dadku ay arkaan taa waa qodobka koobaad aragti haddii la arki waayo waxay ku sugnaanaysaa 30 maalmood inay bisha shacbaan ay ku dhammaato yaquulu calayhi الsalaaةu wasalaam suumuu liru'yatihi waaftiruu liru'yatihi fain guma calaykum faakmiluu cidaةa shacbaana 30 aw kama qaala calayhi الsalaaةu wasalaam yacni waxaad ku soontaan aragti sidoo kale waxaad ku afurtaan aragti taasi waa 29 baa laga wadaa haddiise laydinka qariyo oo laydinka daboolo oo daruuri iyo caad iyo wax lamida ay idinka qariyaan ood arki weydaan 30 dhammaystira buu nabigu leeyahay salى اllahu عalayه wasalam taasi horta waxaa weeye maxay ku sugnaan kartaa bisha ramadaan in la soomo su-aal baa ka soo baxaysa oo in badanna dadku isweydiiyaan maxalu baxhigeedana halkan aan ahayn laakiin inaan inshaaro ay lagaba maarmaan tahay waa laba waa mid way dhib yar tahay oo waxaa weeye qofka arkaya maxaa loo shardiyaa waxaan ku koobaynaa waa inuu yahay muslim cadaalad ku tilmaaman hadduu arko waan qaadanaynaa warkiisa midda labaad magaalo waddan kasta oo laga arko waddanka kale ma ku soomayaa waa masale khilaafa laakiin waxaan ku soo aruuray biidn illahi subxaana wa tacaala sida ugu kooban ee la dhihi karo qolo kastaoo isku matlaca ama isku hawe ama isku wakti ay qoraxi usoo bixi karto ama isku dhadhow isku juquraafi ah way isku soomayaan biidn illahi subxaanahu jala wacala hada wabillahi towfiiq wallahu aclamu bisawaab jazaakum allahu khayra ilaahay mashaa'ikhda ha ka abaalmariyo kolleyba waxyaalo badan oo qodobo badan oo loo baahnaa in laga hadlo maalan alisticdaad lihada الshahr waktigaad moodaa inaysan nagu simeyn yani maaragtay haddii insha allah wakti loo helo meelo badan oo hadda aan warqadda igu qorayn baa culammadu taaban doonaan xagga طibiga maalan sida soonku uu maaragtay qofka faa'iidada yani caafimaadka oo aan la koobi karin oo qofka uu ka helaayo taa waxaan annaga muslimiin haddaan nahay wa an tasuumuu khayru lakum ilaahay baaba yihi subxaana wa tacaala inaad soontaan baa idiin khayr badan dhinac walba yani maaragtay ajarka ka sokow yani caafimaad
iyo naftaada ku degta iyo khayrba yani waxa waaye takhaatiirtuna way ka hadleen insha allahu tacaala haddii fursad waqtiga aan helo waa lagu dari doonaa biidni illahi alkariim haddana waxaan u gudbin doonaa insha allah sheekh xambali calaa man yajibu asawmu calayh yuu soonku ku waajibaya falyatafadal mashkuur bismi illaahi الraxmaan الraxiim soonku wuxuu ku waajibay qof kasta oo muslim ah muslim markii la yidhaahdo gaal baa marka meesha ka baxaya wuxuu kaloo ku waajibay soonku qofka muslimka ah ee mukallafka ah ee ama qaan gaadhay mukallaf maxaa laga wadaa qof qaan gaadhay caqligiisana uu u dhammaystiran yahay oo awooddii leh wuxuu kaloo soonku ku waajibay qof kasta oo muslim ah oo mukallaf ah oo qaadirun cala asawm ah soomkana awooda oo soomi kara waxaa meeshaana ku baxaya mariidkii iyo musaafirkii baa ku baxaya ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar midka jiran ama safarka ku jira maalmo kale ayuu soomayaa oo uu soonka qadaynayaa qaadirantaa haddii sidaa lagu daayo oo mariidkii iyo musaafirkiiba ay ku baxaan waa iska okay waxaa kaloo la samayn karaa in shardi afraad laga dhigo an yakuuna muqiiman qofka soomayo inuu yahay qof negi oo gurigiisii jooga wa haadaa min maxaasin alislaam ilaahay subxaanahu wa tacaalana in looga mahad celiyo u baahan islaamka wanaaggiisa ayay ka mid tahay oo shareecadeennu waa yusri ee cidhiiri ma aha wayna fududahay waxaa kale oo shardi ah ama uu soonku ku waajibay qofka ah ama qofka soonku uu ku waajibayo waa inuu yahay waxa loo yaqaano alkhuluwu min almawaanic mawaanicda wax soonkii wax diidaya in la soomo waa inaysan ku qunsanayn qofka isaga ah dumarkii maalan waa inay gabadhii tahay gabar aan caado qabin ama gabadh nifaaskii ama dhiigumuleedkii aan qabin waa inay tahay wahaakada waxaa daliil u ah xadiid rasuulka salى اllahu calayhi wasalam uu leeyahay alaysa idaa xaadad lam tusalli walam tasum uu leeyahay nabiga salى اllahu calayh wasalam iyo axaadiid kale oo nabiga ka asaxday salى اllahu calayh wasalam in gabadha xaydka qabta iyo gabadha dhiigumuleedka xilligiisii ku jirta inuusan soonku ka asaxaynin ee soonkana uusan waajib ku ahayn gaalnimada maalan waxaynu nidhi qofka waa inuu muslim yahay gaal baa marka meesha ku baxaya inuu nidhi gaalku waxaa weeye ilaahaygii soonkan waajibiyey buusan rumaysnayn marka soon meesha uma yaalo lagana aqbali maayo wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu biاllahi wabirasuulihi walaa yaأtuuna الصalaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun aayaddu waxay sheegaysaa nafaqadii u gudbaysay dadka kale ee ama biilka u ahayd ama waxtarka u ahayd haddii laga aqbali waayey oo la yidhi laga aqbali maayo cibaadadii qofkan brivatka ahayd ee isaga gaarka u ahayd ee isagii rabbi ka dhexaysayna waa min baabi awlaa su-aal marka ninka gaalka ah hadduu soon badan isagoo ku waajibay uu muddo dheer gaal ahaa uu soo islaamo qado ma lagu leeyahay maya qado laguma laha oo alla subxaanahu wa tacaala wax alla wixii soonku soo dhaafay ilaa intii aad qaangaarka ahayd dib u soo soon la odhan maayo ilaahay wuxuu leeyahay qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf haddii gaalnimada laga islaamo oo ay gaalnimadii ka reebtoomaan alla waa u dhaafayaa wixii ka horreeyey halkaa kala qabsada ayaa la odhanayaa laakiin wax dambe oo dib loogu raacanaya ma leh soonku wuxuu leeyahay marka fadli aan la soo koobi karin oo mid ka mid a sheekh maxamuud baa tilmaamay abu ayuub xafidahullah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaaba isu tiiriyey waxaa kaloo ka mid a fadaaisha soonka ee xadiidta rasuulka ay cadaysay laba xadiid baan kusoo koobayaa nabiga wuxuu yidhi salى اllahu calayhi wasalam man saama
ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadam ninkii soomaa ramadaanka isaga oo rumayn ilaahay iyo cibaado alle inuu gudanayo darteed u soomay isagoo ajir gurubsanaya dembigiisii hore oo dhan waa la dhaafayaa buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala xadiidkii kale man qaama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih waa isku mid laakiin qiyaam oo habeenkii la tukado oo qur-aanka la akhriyo oo cibaadada ilaahay buu xadiidkana gaar ku yahay xadiidkii kale man qaama laylaةa اlqadr oo habeen isna aada u qiimo badan oo ina dawaad isaga keligii loo gunto mudan habeenkaa isagaa qofkii qumo iimaanan واxtisaaban gufira lahu isna maa taqadama xadiidkii kale nabiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi ida jaaءa ramadaanu ramadaan markuu yimaado futixat abwaabu اljanة wagulliqat abwaabu الnaar wasufidat الshayaaطiin ramadaanku markuu soo galo albaabada jannada waa la furaa albaabada naartana waa la xidhaa shayaadiinta oo dhanna waa la silsiladeeyaa ayuu rasuulku leeyahay salى اllahu عalayhi wasalam marka waa fursad dahabi ah oo qaali ah oo dadka muslimiinta u soo hoyatay loona baahan yahay in laga faa'iideysto aadaabta ramadaanka iyo usluubka ilaahay ugu talagalayna ramadaanka loola yimaadaa axkaamtana la ilaaliyaa marka intaan la gaarin aan ilaahay aan weydiisanaa inuu ilaahayna gaarsiiyo bishan hadda aan ku jirna ee shacbaan waa bil nabiga salى اllahu عalayه wasalam cibaadada iyo soonka uu aada u badin jiray mar la weydiiyeyna wuxuu ku cileeyey nabiga salى اllahu عalayه wasalam waa bil dadku ay xoogay aysan fahansanayn khayrkeeda oo rajab iyo ramadaan bay u dhaxaysaa acmaasha ilaahay loo kor yeelaa waxaanan jeclahay in camalkayga ilaahay loo kor yeelo wa ana saa'im ayuu yidhi nabiga salى اllahu عalayه wasalam ilaahay ramadaan hana gaarsiiyo cibaadada iyo ilaahay waxyaabaha loogu dhowaadana allahna waafajiyo ilaahayna hanaga aqbalo wallahu aclam baaraka allahu laka jazaaka allahu khayra sheekh saan u sheegnaba kolley waktiga xadadan lama sii faahfaahin karo un waxaa waaye un intii la taaban karo oo lasoo kookoobi karo haddana arkaanta soomka tiirarka soonka maxamuud sheekh cabdiraxmaan abu ayuub baan gudbinaynaa falyatafadal بسم الله الحمد لله وبعده cibaado ka mida cibaadooyinka ilaahay subxaanaه wa tacaala uu inoo jideeyey ay weeyaan soonku sida aan naqaano cibaadooyinku waxay leeyihiin arkaan waajibaad shuruudo sunan iyo wax la mid ah ama ramadaanka maadaama uu cibaado yahay waxaa loo shardinayaa ama arkaan uu noqonayo laba arrinoo muhiima awala waxa weeye anniya maadaama camal uu yahay ilaahay acmaasha loogu dhowaado ugu waaweyn uu ka mid yahay laa budda min niya waxaana u daliila xadiidkii saxiixeynka ku yaalay ee xadiidu cumar bn khaaab radia allahu canhu nebiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu yihi inama alacmaalu biالniyaat wainama likuli imri'in maa nawaa acmaashoo dhan waxay ka guntantaa ama ay ka ansaxdaa ama lagu aqbalaa niyadda camal qof walbaana wuxuu niyeysta ayuu leeyahay wakadalika allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yihi wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu diin saa daraaddeed soonka aada soomayso waxaa waajib kugu ah ruknina u ah inaad niyeysato waxaad sii niyeysanaysaa soonka waajibka habeennimadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka ansaxay xadiid macnihiisa uu yahay man lam yubayit الصiyaama biاlleyli falaa siyaama lah qofkaan habeenkii soonka sii guntanin oo intuusan fajar la gaarin ka hor aan sii niyeysan berri inuu soomayo soon inuusan lahayn sidaa daraaddeed niyaddu waa rukni min arkaan الصiyaam waa tiir ka mid a tiirarka soonka ma aha niyaddaas in alfaad mucayan oo afka looga dhawaaqa inay leedahay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam kama soo aroorin haba yaraatee alfaad makhsuus ah oo soonka loo niyeysanayo oo la odhanayo sida dadka qaar aad ka maqashaan nawaytu sawma gadin can adaa'i fardi shahri ramadaana hadihi sana lilahi tacaala iyo wax la mid ah bal nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku gaabsaday inama alacmaalu biالniyaat mana uusan ka hadal habka loo niyeysanayo sidaa daraaddeed niyaddu waa shay maxalkeedu yahay qalbiga ama talafud in lagu dhawaaqo culimmadu waxay yidhahdeen waa bidca sidaa daraaddeed yaan lagu kadsoomin kutubta qaar waxa ay qoreene ah
النيد وحوية قصد شيء مقترن بفعله ومحله القلب والتلفظ بها سنة صح ما هارنكاس بل إن لغو تلفظا وبدعة وركنك كوباد وكنت هاي صنك أما ركنك اللباد soonka uu ku taagan yahay waxa weeye inuu qofka ka afhaysto waxyaalaha soonkiisa maalinka furi karo waa maxay waxyaalaha soonka maalinka furi karo insha Allah culimada ayaa nooga hadli doonto soonka waxyaalaha qofka ka furayo laakiin qofka inuu ka afhaysto Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala amray wuxuu yiri fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allah lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wuxuu Ilaahay baneeyay haweenkii jimaacoodii xalaasha ahaa iyo cuntadii iyo cabidii habeenkii kadibna wuxuu yiri fajarka hadii la gaaro la afhaysto ilaa habeenka kala la gaaro yaani qorraxdu ay dhacdo marka inuu qofka ka afhaysto waxyaalaha soonka maalinka furayo iyo inuu niyeysto soonkii waajibka ah habeenimo labadaas ayaa rukni u ah soonka hada wabillahi tawfiiq جزاك الله خيرا الله كأبال مريو أنا وحنا نركز على الصومالية إن ليرها لو وحير الصونكا صلاة المغرب مركز اللي تكذبها إمامك قاعد جنويت الصوم قدن يعني دتك ولا سلوى قاعد يجري يعني إخواني وحاس الدين ماها صلاة دا لم إذا إن أصلي فرض الصلاة الظهر إن ليرها وحاس صورنا بحبك مجران عبادة والتوقيفية وعبادة سيدي أسمى لغيره أسمى يعني صلوا كما رأيتمون أصلي سيدي النبي قلت كذي سيدي أسمي inaan ku dadaalo taasna waxa loo baahay alfiqhu fi diin yani qofka inuu majaaliska cilmiga yimaado culimada weydiiyo yani maaragtay hadii aad dhihi jirta dhaweyto sooma qadan ama salli farada dhihi jirtay maanta wax ka dambeeya laga maqlay yani maaragtay waa bid'a fi diin illah lagu ma dirsan yani wax lagu dirsaday maaha niyeyso niyadaasa kugu filan salafkii hore iyo wixii ku filaada annagana waa inaan ugu filaadan marka haddana waxaan u gudbaynaa soonka cibaadada maxaa buriya waxyaalaha soonka qofka uu uga jabo muxuu yahay waa qodob muhiim ah oo qofka loo baahan yahay inuu ogaado sheekh Abu Dalha ayaa u gudbinaynaa barakallahu fikum alxamdulilah ilaahay subxaanaه wa tacaala ka abaalmariyo culummada iyo ducaadda kelimaadka sida ay u koobeen runtii anigoo ka bilaabaya meesha uu sheekh maxamuud abu ayuub uu ku istaajiyey oo ah soonka arkaantiisa waxaa ka mid ah inaad ka afaysato min طuluuci اlfajri الصaadiqi ilaa guruubi الshamsi maca istisxaabi الniya ayadoo weliba niyadu intaa ay la socotoo la kala goynin haddaba waxyaalaha soonka buriya cibaadaadka waxbaa buriya towxiidka waxbaa buriya salaada waxbaa buriya haddaba soonkana waxbaa buriya marka qofku inuu barto loo baahan yahay waxyaalaha buriya waa soo aruurinaya in sha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo sida ay cibaadadu tawqiifi u tahay oo daliil ugu baahan tahay ayaa wax alla wixii burinaya cibaadadana iyadana daliil bay u baahan tahay qodobka koobaad goorta aanu suxuuranay kadib muadinka adinkiisa muadinka adinkiisana aan maqalay kadib ilaa ay qoraxdu ka dhacayso inta u dhaxaysa inaad wax cunto oo aad wax cabto labadaana ay la socdaan inaad olokac iyo kas aad u samaysay horta soonkaa waa ku jabaa hadaa qodob koobaad weeye waa cunitaan iyo cabitaan ay la socoto ogaal iyo xusuusasho iyo kas iyo olokac qodobka waa qodob koobaad weeye waa ku jabayaa soonka qodobka labaad waa galmo nin iyo xaaskii gogol wada tegey oo jimaaca waxa loo yaqaano ayadana soonka waa ku jabayaa yani waxaa kaloo raacsan intaas weliba jimaaca keliya ma xataa hadduu la mubaasharoodo oo istimtaac ku sameeyo oo sidaa daraaddeed ay shahwadu ku timaado oo ama isagu derbiga isku dhejiyo ama dhulka isku dhejiyo ama gacan isticmaalo waxay doontaba ha noqotee yani qofku inuu shahwadiisa kas iskaga keeno ayadana soonka waa ku jabaya qodobkaa isku hal qodob ayaan ka dhigayaa weliba qodobkaasi siday culammadu noo faahfaahin doonaan waxaa ka waajibaya maxaa la yidhahdaa kafaaro adag baa ka waajibaysa waa qodobka jimaaca yaana ka tegin be waa ka duwan yahay qodobka qodobada kale hadduu ninku maalin ramadaan xaaskiisa u tago xaaskiisa ay calaaqa iyo xidhiir ay dhex marto waxaa ka waajibaya
wax la yidhaahdo kafaara addoon inuu xereeyo, haddii uu waayana 2 bilood oo isku xigta inuu soomo, haddii uu soomi waayana inuu quudiyo 60 miskiin, sida qur'aanka iyo axaadiida intaba laga qaadanayo. qodobka saddexaad waa inuu qofku afka gacanta kas u geliyo oo calooshiisa waxa ku jira banaanka uu keeno oo iska soo matajiyo asagoo weliba oola kacaya. qodobka kale waa qofka in dhiig badan laga qaado ama xijaamada ama toobitaanka ama dhiiggan caadiga ee dadka loo shubo si dad kale loogu shubo oo kale, wa in kaana fiiha masaladaasi hadal uu ku jiri karo. afطar alxaajimu walmaxjuum. sidoo kale gabdhaha labada dhiig ee khaaska u ah ayagana soonka waa jebiyaa. dhiigga bishii oo mar ku dhaca ee caadada loo yaqaano iyo dhiigga dhalmada ee nifaaska loo yaqaano, labadaaba markaa way jebiyaan. waxaa kaloo jebiya soonka aridda, nacuudu biاllahi subxaana wa tacaala. qofka asagoo soomanaa inuu ridoobo oo islaamka ka baxo, ku hadlo hadal islaamka ka saara, uu sameeyo ficil islaamka ka saara, uu ictiqaadiyo ictiqaad qalbiga wuxuu gashado islaamka ka saara. waxaa kaloo la yidhahda waxaa jebiya maa yaquumu maqaama alakli waashurbi, wixii istaagi kara booska cunitaanka iyo cabitaanka, oo waxaa lamid a falebooyinka. laakiin qodobka aan wax yar sharxo. bini aadamku wuxuu leeyahay 2 meelood oo loo yaqaano yani jawf, 2 jawf buu leeyahay ama 2 manfad buu leeyahay. mid waa caloosha, midna waa maskaxda. haddaba caloosha wax alla wixii gelaya afka usii maraa, wax alla wixii maskaxda gelayana sanka ayuu usii maraa. haddaba waxaan leenahay wax kasta oo afka laga isticmaalo, waxa ha noqdo wax dhagaxa ama jurmile ama qoyan, maa'ica, angegan, xalaala, xaaraama, wuxuu doono ha noqdee, waxa weeyaan soonkaa waa jabaya. wax alla wixii sanka laga isticmaalo oo xagga iyo maskaxda usii gudbana asagana soonka waa jebinaya. lidalika nabig wakiil sal ly slam ku xeel dheerow sandaarsiga ilaa an takuuna saa'iman, maxaa yeele biyihii baa xagga u gudbaya. marka labada aan sheegna waxaa la yidhahdaa almanaafid almuctaad baa la yidhahdaa, waa meelaha sida caada wax ka galaan. laakiin waxaa jira waxyaalo kale oon muctaad ahayn, sida maxaa la yidhahda indhaha, sida dhagaha, sida xagga dambe iyo wax lamida, sida xididada. intaa wixii laga isticmaalayo hal shay baa loo fiirinaya oo keliya, oo waa maxay? shaygani ma istaagaya maqaamkii ama makaanka ama booskii cunidda iyo cabitaanka. haa hadday noqoto soonkii waa jabayaa, maya hadday noqotona soonkii ma uu jabayo. khatimka kelimadan ayada ah oo hadda mawduucaad u ballaarhana, waxaan leenahay qofka markaan leenahay soonku waa ka jabayaa, 3 shardi baa ku xidhan. an yakuuna caaliman bilxukmi, caaliman mukhtaaran, waa inuu yahay qof caaliman bilxukmi. horta xukunka waa inuu yaqaano. walidaalika waxaa la yidhahdaa markay soo degtay aayadda culimmadu akrinayeen aayaddii suurat lbaqara dhe uxila lakum kasoo bilaabanaysay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr. saxaabiga la xakiim bin xisaam, 2 dunoo midna madowda midna ay caddahay buu soo qaatay baa la yidhahdaa axaadiida. kadibna barkinta hoosteeda ayuu gashaday, wuxuna waa cabbaa. waktigii nabiga nalal iyo iftiin ma jirine, goor ay malaha qoraxdiiba ay soo galayso guriga ayuu iska daayaa. kadib baa nabiga loo sheegay, nabiguna wuu la kaftamo barkiiba weyn uu ku yidhi ma amrin nabigu inuu soo celiyo soonkii nooca ahaa. saa daraaddeed qofku inuu xukunka yaqaano. midda labaad waa in caaliman bilwaqti, sidoo kale waktiga waa inuu yaqaano. asma bint abi bakr waxay leedahay nabigaanu la safarnay fii yowmin kaym, qoraxdii baan moodayna inay dhacday, waan cunay oo waa cabnay. markaan afurnay kadib nabiguna la socda ayay qoraxdii soo baxday. afka un baad haysanaysaa, laakiin soonka asaga a nabigu ma amrin in la soo celiyo. midda saddexaad waa inuu xusuusan yahay qofku, waayo nebigu sal ly slam wuxuu leeyahay ninka cuna oo cabaa asagoo hilmaansan falyutima sawmahu, soonkiisa ha dhammaystirto. tanna waa arsaaqad uu alla siiyey subxaana wa tacaala, fainama acamahu اllah wasaqaa. marka daakiran mukhtaaran waa inuu yahay, kelimada ugu dambaysa waa inuu asagu doortay oo aan la qasbin. hada wbilahi towfiiq wjazakum اllahu khayra. baaraka allahu laka, jazakum allahu khayran. ikhwaani saan u sheegna waktiga ayaa aad iyo aada u xadidan, axkaamtoo dhan lama taaban karo. yani maaragtay waa wakti kooban ayaa mashaa'ikhda la siiyey.
waxyaalaha kale oo runtii u baahan in iyadan la ishaaro waxaa ka mid a yani qofka laga kari waayo isagoo sooman qowla zuuriya oo xantii laga kari waayo oo beentii laga kari waayo oo namiimadii laga kari waayo bal ka warrama yani maarata wixii xalaasha u ahaa oo cuntadii iyo cabitaankii iyo xaaskii awalba xalaasha u ah intuu iska daayey ramadaan iyo kayr ramadaan wixii xaaraanta ahaa hadduu ku dhaco ramadaan ka warramo dadka inta qaarkiisay u badan yihiin yani maarata mas'aladaas waa masalo khatara yani maaragta haddaad qof xamatid adigoo sooman haddaad been sheegtid qowl zuur haddaad ku dhacdid haddaad namiimo see ramadaankaaga soonkaaga see noqonaya ma kuu jiraayo mise kuma jiraayo maarata insha allah mashaayikhda ayaa taaban doona kolley waxaan shaki lahayn ajarkaaga inuu kaa nuqsaamayo yani maaragta marka waa inaan is ilaalisaa xumaanta dhan iska ilaalisaa markaad sooman tahay saad addacaam washaraab isaga ilaalisay carabkaagana waa inuu soomaa indhahaaga waa inay soomaan yani acdaagaaga waa inay soomaan yani intaasoo dhan yani maaragtay waa in laga wada soomaa baaraka allahu fiikum haddana sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan abu ayub xukmu man afdara bilaa cudrin yani qof ilaahay caafimaad siiyey oo maalin ramadaan cuntada iska cunayo aan soomin bal qofkaas xukunkiisa sheekh maxamed baaraka allah وفيك بارك بسم الله الحمد لله وبعده قف كمال رمضان soon lagu jiro aan soominaya furay waxaan u kala qaybinaynaa 3 qaybood imaa inuu yahay qofkii qof inkirsan waajibnimadii soonka qofka noocaasa laa shaka inuu yahay qof kaafira oo murtada maxaa yeelay soonka ramadaanka waa rukn min arkaan islaam wuxuuna ka mid yahay arrimahay culimadu ku tilmaamaan almacluum min addiini bidaruura lagama yeelayo qofna waxaan la inkiray soonka waajibnimadiisa maanan ogeyn hadduu yahay gaar ahaan qof aan meel baadiya oo islaamka ka fog aan ku korin oon hadda soo islaamin bal muslimiinta dhex joogay qofka noocaasa waa qofka inkiray waajibnimadiisa wuu gaaloobaya wuu ridoobaya amaa qofkii waajibnimadiisa isagoo qirsan hadduu soomi waayey waxaan usii qaybinaynaa 2 qaybood imaa inuu qofkii cudur leeyahay sida ilaahay subxaana wa tacaala ugu cudur daaray dadka xanuunsan iyo dadka musaafiriinta iyo wax la mida uu yihi faciddatu min ayaamin ukhar maalmo kale gadaal ha ka soo tirsadeen oo ha ka soo qalleeyaan amaa qofkii isagoon caafimaad qabo asbaabihii iyo mawaanicdii culimmadu ay noo soo tilmaameen mid ka midin aan ku jirin kari kara inuu soomo musaafir aan ahayn ee muqiima caafimaad qaboon xanuunsanayn gabadha uurka leh ama middaa umusha ama middaa ilmaha nuujinaysa toon aan ahayn ama dhiigga caadada qabto si ula kaca u afuray qofka noocaasa wuxuu ku dhacay dembi kabiira min alkabaa'ir waxaa waajib ku ah inuu ka tooba keeno waxaana waajib ku ah inuu soo qalleeyo maalinkaas siday culimmada agarkooda ay ku tageen waxaa intaa usii dheer qofkaas nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis baa ka soo arooray uu tilmaamayo markii la dheelmiyey alisraa walmicraaj inuu soo arkay dad naarta lagu cadaabayo oo laga dhiijinayo oo afkooda dhacaan badan laga soo sii daynayo iyo dhiig fara badan iyagoo cabaadaya naarta dhexdeeda wuxuu yihi man haaulaai ya jibriil war dadkaa waa jibriilow maanta sidaa loo cadaabayo waxaa la yihi waa dad ummadaada ka mid ah oo afurayo intaan waktigii afurka la gaarin ka hor sidaa daraaddeed in cudurdaar la-aan qofkiioo kari karo oo inuu soomo inuu afuraa waa kabiira min alkabaa'ir waa dembi weyn oo dunuubta waaweyn ka mid ah imaam ibn shamsudiin الdahabi kitaabkiisa alkabaa'ir wuxuu ku daray baab ka mid ah baababka kabaa'irtaa inay tahay inuu qofkii cudurdaar la-aan maalin soona isagoo kari kara inuusan soomin sidaa daraaddeed qofka waa inuu ilaahay uga tooba keena dembiga kabiirada ah waa inuu go-aansadaa mar dambe inuusan ku noqon waa inuu wixii lagu lahaana uu soo qaleeyaa maxaa yeelay waa qof muslima inuu sooma looga baahan yahay amaa qofkii kaafirka ah ee soo islaamay hadda alislaamu yajibu maa qablah sida xadiidkii cabdullaahi ibni camar ibni caas aabihi uu ka warinaya camar ibni caas oo ku yaalay fi saxiixi muslim wagayri jazaak allahu khayran sheekha waxaa ku dartaa waxyaalaha mustaxabaadka oo soonka sunanka qofka looga baahan yahay insha allah makruuhaadkana waan ka hadli doonaa insha allah baarak allah bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wabacdah soonku walaalayaal wuxuu leeyahay waxyaalo wan wanaagsan oo ay culimmada ku magacaabaan waxyaalaha wan wanaagsan ee qofka muslimka ee sooman inuu sameeyo looga baahan yahay arrimaha noocaasa waxaan kusoo koobi karnaa dhowr arrin waa marka ugu horeysa waxaa mustaxib oo wanaagsan
qofka ramadaanka marka la gaaro habeenkaa inuu sii suxuurto rasuulka wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam tasaxaruu faina fi الsuxuuri baraka war hala suxuurta suxuurtu barakay leedahay bal hadduusan qofku xitaa uusan rabin inuu soo kaco saq dhexe oo uu cunto badan cuno xitaa koob biyo aba ha cabe waa inuu soo kacaa suxuurtu way barako badan tahay waxaa ka mid a waxyaalaha mustaxibaadka ee wanaagsan qofka soomayo looga baahan yahay inuu sameeyo inuu afurka dedejiyo rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ku tilmaamay waxyaalaha fadaaisha iyo wanaagga lagu gaaraya inay ka mid tahay qofka marka uu sooman yahay inuu dedejiyo afurka oo hore u afuro rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ku tilmaamay waxyaalaha ajarka iyo xasanaadka badan laga helaya inay tahay afurka hore loo afuro waa xadiidkii ahaa laa yazaalu الnaasu bkhayr maa cajilu الfiطra dadku kama zuulayaan inay khayr iyo wanaag ku sugan yihiin intay dedejinayaan afurka suxuurtana in dib loo dhigo wakadalika qofka markuu afuraya inuu ku afuro timir hadduu heli karo weli gaaraan midda radabka ah hadduusan heli karinna biyo inuu iska cabo intuusan qofka cuntada cunin wakadalika waqtiyada istijaabu dacwada aan filayna inay tahay waa inuu qofka ducaystaa rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidku waxaa ku sugnaaday sunan tirmidi ee keyrkiisa ku yaalay 3 waqtiba ducada lama soo celiyo waxaa ka mid ah qofka markii laga gardaran yahay madluumka uu yahay habaarka uu habaartamayo imaamka caadilka ducadiisa iyo qofka sooman marka uu afurayo sidaa daraaddeed walaalayaal aan ku dadaalna maalka ramadaanka waxyaalaha mustaxibaadka ay ka mid tahay sida qofka inuu sadaqaad badan bixiyo si xadiid cabdullahi ibn cabaas saxiixa wuxuu ahaa nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam dabaysha la diray wuu uga dheerayn badnaa bisha ramadaanka ah wax bixinta sadaqaadka waxaad ogaanaysaa nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam aad buu u ammaanay axaadiis badan qur-aankuna wuu ammaanay sadaqada sidaa daraaddeed bisha ramadaanka ha noqoto waqtiyada aad xitaa haddaad zakada bixinayso zakaatulmaalka aada la fiirsatood la beegato wakadalika habeenkaas ramadaanka in loo istaago salaada la yidhaha taraawiixda oo imaamka lala tukada ilaa salaada uu ka baxayo oo ramadaanka lala dhamaysto oo habeenkaa lagu dadaalo iyaduna way soo aroortay waa shay wanaagsan ugu dambayntii qofka inuu aad u badiyo qur-aanka akhrintiisa bisha ramadaanka ah nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam kaana yudaaris اlqur'an maca jibriil sanad walba mar buu la dhamayn jiray laakiin ramadaankii ugu dambeeyey 2 mar buu la dhameeyey saa daraaddeed shahru ramadaan waa shahru اlqur'an sidaa daraaddeed qofkii kari kara mar inuu qur-aan ka dhameeyo 2 mar inuu dhameeyo 3 iyo 4 mar inuu dhameeyo ha badsado waa ziyaada waa nuur calىa nuur wabilahi towfiiq jaزak الlah khayr shekh haddana makruuhaadka waxyaalaha soomka wixii burinaya waa laga soo hadlay waxyaalaha la kahday oo qofka sooman loo baahay inuu ka fogaado sheekh abdal xasin alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllahi wabacd waxaan shaki ku jirin culummadu ayagaa isdhammaystiraya oo kelimadii markaa meesha ka maqan ayagaa buuxinaya marka horey baa loo sheegay waxyaalaha wax u dhimaya ee karaahada ah ee soonka ajirkiisa kaa dhaawacaya waxaa ka mid a xamtu waa inaad cunto qof kale oo muslima ama qof kaleba hilibkiisa inaad cunto qur-aankuna saas uu tilmaamayaa hilib cunid inay tahay qiibadu inagu aada ooma naqaano meesha ay ka bilaabato hebel waa gaaban yahay iyo hebel wuu madow yahay wuxuu ku tilmaamay nabigu salى الlahu عalيه wasalam haddii badda lagu dari lahaa baddu way isbedeli lahayd qurmuun daraadii waa ereyada noocaasa maxaad u malaynaysaa marka wixii intaa ka badan waxaa kaloo ka mid a dad isku dirka iyo dab ukala qaadka dadka in laisku diro oo madaxa la isu geliyo waxaa ka mid a cayda iyo sabiga iyo shatmiga iyo dagaalka walidaalika baa nabigu wuxuu tilmaamayaa salى الlahu عalيه wasalam fain saabahu axadu aw qaatalah qof haddii uu kusoo weeraro go-aansadana in uu kula caytamo ama uu ku caayo ama uu wax ku yeelo shayga keliyaed oga baxsan karto waa inaad dhahdo inii saa'im war waan soomanahay idaa sababta oo waa maxay waxaad diideysaa adigu madluum baato waa lagu gardaraysto waa iska celin kartaa laakiin waxaad diideysaa inaad xadgudubto ajurkaaguna uu nusqaamo wayo midda aad diideyso waxaa kaloo makruuhaad ka mid a sidaan hore usoo sheegnay in sandaarsiga markii la weysaysanayo in lagu xeel dheeraado maxaa yeele khatarteeday leedahay oo biyuhu way kugu carari karaan waxaa kaloo ka mid a sawm lwisaal soonka inaad xidhiidhiso oo macnihiisu yahay
inaad dhahdo anuu ajir raadsanaya oo badsanaya maanta o dhan waan soomanaanayaa caawana waxba cuni maayo berrina waan ku darayaa saa dambe ayaan anfurayaa arrintaa nabiga ayaa samayn jiray salى اllahu alayhi waali wasalam markii la weydiiyena wuxuu yidhi intaasoo nin oo idinkoo kale ah idinka idin kamida awoodooda ayaa la isiiyey waxaa kaloo iyadana kamida makruuhaadka qublada ama dhunkashada oo ninku xaaskiisa dhunkanayo weliba khaasatan dhalinyarada iyo da-yarta odayaasha anigoo kale iyo shaxambeli oo kale iyo kolaba sheekhu naga yidhi aan filaya raggaas ayaga ah maxaa la yidhahda iska rag waaweyn weeye waxaad garanaysaa nabiga alayh slat slaam nin baa u yimid da-ah wuxuu rasuulka ilaahi anigoo sooman xaaskii ma dhukan karaa haa buu yidhi maxaa yeele qofku khalayaanu shahwa ma kuma dhacayso wuu isqaban karaa waa qof weyn oo ama iska adag ama waayo araga nin dhalinyara u yimid oo wuxuu yihi rasuulka ilaahi xaaskii ma dhukan karaa maya buu yidhi sababta waa dhalinyaro waxa ka imaan kara ayaana la ogyahay waxaa kaloo iyadana in laga fogaado u baahan inkastoo iska banaan tahay laakiin khatarteeda leh raashinka in la dhadhamiyo raashinka markii la sameynayo waa la dhadhamin karaa dhibaato male laakiin inaad badsato ayadana khatarteeda ayay iska leedahay kelimada u dambaysa oon isleeyahay waa kelimo aada muhiim u ah waa wax loo yaqaano idaacat lwaqti iyo fadhi kudirirka iyo muranka iyo waktigaan dilaya iyo soonkaan dilaya iyo maanta o dhan baan jiifaya iyo ma cibaadaysanayo intaasoo dhan waxay kamid yihiin iyo kuwa lamidka aba waxyaalaha aan loo baahnayn ee makruuhaat siyaam wallahu aclam wajazakum allahu khayra baarak allahu fiika sheekh haddana mawduuc kale sheekh xambali alictikaaf ictikaafka macnihiisu muxuu yahay maxaase looga baahan yahay qofka baarak allah tafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وبعد الاعتكاف حقيقة wuxuu ku jiraa mustaxabaadka soonka ayuu ku jiraa marka waxaa malaha ficnaan lahayd inuu sheekh abu ayuub ku daro waxyaabaha sunnada ah ictikaafka marse haddii si gooni ah loo magac dhabay waxaan u malaynayaa waa un liahamiyatihi alictikaaf horta walaalayaal waxaa la yidhaahdaa luqatan xagga luqada carabiga lusuumu shayi wa xabsu nafsi calayhi baa la yidhaahdaa shay la laasimo oo naftana lagu hakiyo ayaa ictikaaf la yidhaahdaa wa minhu qowluhu tacaala maa haadihi tamaahiilu alatii antum laha caakifuun qolyii nabiyullaahi ibraahim uu la hadlayey ee tamaahiishan iyo asnaamtan aada dul fadhidaan eed laasimteen maxay tahay sharcanna ictikaafka waxaa la yidhaahdaa almuqaam waxaa la yidhaahdaa almuqaamu fi lmasjid min shaksin makhsuus calaa sifatin makhsuusa tacabudan lilah oo macnaheedu uu yahay masjidka iyo guryaha ilaahay ee cibaadada iyo salaada loo darbay looguna talagalay in lagu nagaado oo loogu nagaado weliba qaab gaar ahaaneed iyo aadaab iyo shuruud gooni oo islaamku uu u dejiyey ee loogu nagaadaa la yidhaahdaa nagaadigaasoo ah tacabudan lilah ilaahay in loogu cibaadaysanayo iyada lafsadeeda bixaddi daatiha cibaado ah xukumkiisu marka muxuu noqonayaa ictikaafka haddaynu sidaa u fahanay xukumkiisa waa mashruuc waa mustaxab sidaan sheegnay sunanka ramadaanka ayuu ka mid yahay gaar ahaan tobanka dambe kitaabka qur-aanka yacni adilada kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi salaam iyo ijmaacaba way soo guuriyeen ama waa laga helayaa waajibna ma noqonayo sida xooga badan waajibna ma noqonayo khilaafan lilmaalikiya maalikiyada waxay leeyihiin mar haddii la niyeysto waajib buu noqonayaa oo lama burin karo marka laakiin jumhuurtu waxay qabaan in uusan ictikaafku waajib ahayn ilaa binadr in lagu nadro ma ogiye nadarka markaa waxyaabo badan oo mubaaxaad ahaa buu waajib ka dhigaa sadaqadu matalan waa mubaax tan sadaqada caadigaan ka hadlayaa sakadii kama hadlayo inaad $100 baxsato waa mubaax laakiin haddaad ku nadarto tiraahdo ilaahayow haddaad sidaa iyo sidaa yeesho $100 baan la baxayaa waajib bay kugu noqonaysaa wayuufuuna binnadri marka ictikaafka ciddii ku nadarta ma ogiye
ee cid kale waajib kuma noqonayso. ijmaacna waxaa soo raray ibnu mundir iyo annawowi iyo ibnu qudaamaba way soo rareen. kitaabka maalan ama qur-aanka ilaahay waa tan uu leeyahay walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid, haweenka ha isugu dhowaanina oo hala baashirina idinka oo masaajidka ku nagi oo masaajidka jooga. nabigana salى اllahu عalayhi wasalam kama fii xadiidi caaisha iyo kayrkiiba kaana yactakifu alcashra alawaakhir min ramadaan, tobanka dambe wuu ictikaafi jiray. saxiixeynka ayuu xadiidku ku sugan yahay. ijmaacana waxaa laga soo guuriyey can hayri waaxidin baa laga soo guuriyey aimo fara badan in uu sunno yahay oo uusan waajib ahayn. ictikaafka isagaa walaalayaal aadaab badan iyo shuruud badan ayuu u baahan yahay. in sha allahu culimmadu aad weydiin doontaan. lidiiqi lwaqtina intaasaan kusoo koobaya. allah subxaanahu wa tacaala hanaga aqbalo kelimaadkaas iyaga ah. allah subxaanahu wa tacaala idinkana ha idinku daro min aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana. jazakum allahu khayran. waxaad moodaa salaadii waktigeena casar inuu soo dhowaaday. sakaatulfitrigii iyo mawaadiic kale ayaa dhiman. marka waxaan barnaamij kusoo khatimaynaa culummada daqiiqad iyo wax lamida dardaaran. waxaad moodaa dadka muslimiinta ramadaanka in loogu diyaar garoobo cunto, oo waxaad arkaysaaba maaragtay in suuqiiba inta la aado ramadaankii la yidhi cuntada ha la yareeyo in laga cunto badan yahay yani maaragtay, iyo dadka qaarkiisna in badan in la caajiso hurdo iyo waxaas maaragtay ay dadka qaarkiis iskaba hurdaan yani maaragtay oo yidhaahdo waa som. marka in sha allahu mashaayikhdu bal hal daqiiqo isticdaadka ramadaanka waxyaalaha looga baahan yahay yani maaragtay wixii tawjiihina in sha allahu tacaala, iyo bisha ramadaan inay shahru caajis ayan ahayn yani. baaraka allahu fiikum. midigtaan ka wadaynaa in sha allahu tacaala. alxamdu lilah. kolba dardaaranka bisha ramadaan inaanu ku qaabilno altawbatu ilى اllah. ilaahay subxaanaه wa tacaala weel nadiifa baa wax lagu baryaa. baadiyaha markaanu joognay oo aan geeliga loo dhaqanaynay weelkan waa la culaa. weliba geed walba laguma culo ama laguma cugo, waxaa weeye geedo khaas oo carfoon oo idgoon ayaa lagu sameeyaa. ujeeddadu waxaa weeye caanaha inay hayaan. allah subxaanaه wa tacaala waxaan sugaynaa raxamaadkiisa iyo naxariistiisa ayaanu sugaynaa bisha ramadaan, oo shayaadiintanana laga xidhxidhayaa, jannada albaabadeena loo furayaa, naarta albaabadeedana laga xidhxidhayaa. haddaba maadaama oon ilaahi subxaanaه wa tacaala maxalu nadar illaahi, marka waa qalbiga meeshuu alla fiirinaya, marka waa qalbiga. siduu nabigu yihi salى اllahu alيه wasalam in allaha laa yanduru ilى ajsaamikum walaa ilى suwarikum walaakin yanduru ilى quluubikum. riwaayo kale waa acmaalikum bay ku daraysaa. marka maadaama oo weelka aan alla aan wax kaga raadsanayno uu qalbiga yahay, inaanu macsida iyo xumaanta, alriyaa, istususka, kibirka, isla weynaanta, cujbiga, yasida, qabaliyada, caqiida xumada, khuraafada, intaasoo dhan intaanu ka saaro aan asagoo nadiifa aan ilaahay oola tagno. ilaahayna weel weyn baa lagu baryaa, qalbiguna waa weyn yaho wax weyn buu qaadaa, laakiin isagoo nadiifa aan alla oola tagno. intaas ayaan kelima ahaan u arkaa. culamada kale aan inta kale u hambaynaya. jazakum allah khayr. baarak allahu fiik waaxsan allahu ilayk akhuna alfaadil sheekh maxamuud. sida uu tilmaamayba ramadaankan na soo qaabilsan oo ay dhimayn tahay hadda muddada aadka u gaaban, waxaa laga yaabaa qaarkeen inuu noqdo ramadaankii ugu dambeeyey soo maro. sidaa daraaddeed nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa alfaadda marka salaada la gelayo mararka qaar uu dhihi jiray maaha joogto, waxaad u tukataa salaadaada inay noqon karto tii kuugu dambeysoo tukato. sidaa daraaddeed laga yaabe qaarkeen inuu ramadaanka noqday kii ugu dambeeyey, laakiin ilaahay fursad uuna siiyo. sidaa daraaddeed rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam mar uu jaraanjarada masaajidka korayay 3 mar uu aamiin yidhi, waxaa ka mid ahaa qof bil ramadaan ay usoo gashay isla markaana aan loogu dembi dhaafin oo sidaa naar ku galay, naarta allaha ku fogeeya aamiin dheh, aamiin uu yidhi. waa inaan la soo qaabilnaa bisha ramadaanka markayna soo gaarto, sida sheekha uu tilmaamay towba iyo caziima. waa inaan bisha ramadaanka alla qaabilnaa firfircooni
min awalihi ilaa aakhirihi ma aha asbuuca hore meel lagu tukada taraawiixda in la waayo qof walba inuu isku dayo inuu soomo laakiin maalmo ka bacdi haddana in laga kala dhuunto masaajidka in khayrkii iyo wanaaggii laysku bahaysanayo laga gaabiyo waan dareemi karaa meeshan qofka ku soomaya soonkiisa 16 sac 17 sac uu soomayo ma aha soon sahlan sidaa daraaddeed waxaa laga maarmaana qofka inuu u kaashado biالصabri والصalaaة waاstaciinuu biالصabri والصalaaة haddaad salaadaha aad ka seexato ramadaanka markuu soo dhow yahay turub lasoo gato la yidhaahdo taraawiixdana waxaan ku sugaynaa iyo tahajudka meeshaan ka tukan lahayn suxuurta inaan turubno oo galabtii oo dhan sida laysu foorayaa lagu afurayaa qofka noocaasa maadaama uusan sabir iyo salaad kaashan halis buu ku sugan yahay soonkiisa sidaa daraaddeed taqwo adayg soo jeedid ilaahay diintiisao si casiime leh loo qaabilo waa in ramadaanka loogu talagalaa qorsho gaar ahaaneed iyo nidaam aad sii dejisato imise mar baan rabaa qur-aanka inaan dhameeyo imise sadaqaad baan rabaa inaan baxsado sidee baan ilaahay subxaanaه wa tacaala ugu dhowaadaa maxaa khayr ohon baxsan karaya maxaa khayr ohon qaban karaya waa inaan waxba lala harin ilaahay subxaanaه wa tacaala baryadiisana aan laga quusan isla markaana lagu celiyo kelimadda ah laa xawla walaa quwata ila biاllah oo nebigu ku tilmaamay inay tahay kanzu min kunuuzi اljanna mar haddaad kelimaddaa ku celcelisa laa xawla walaa quwata ila biاllah ilaahay subxaanaه wa tacaala quwadiisu wax kaa siinaya awood badanna waad u helaysaa khayrka aad ku qabsato aqulu maa tasmacuun waastaqfir اllaha lii walakum bismi اllahi الرaxmaan الraxiim waxaan isku dayayaa in sha allahu in aan dardaaran culimmada noo dhammaysay dardaarankaygu inuu noqdo dardaaran camaliya in sha allah kow ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiisanno kulligeen inuu ilaahay ramadaankana gaadhsiiyo cabsida ilaahayna aan ku dadaallo ogaada inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa un inta kuwa cabsada unbuu wax ka aqbalaa acmaal fara badan oo la samaynayo oon ilaahay agtiisa waxba ka ahayn baa jira marka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nagu daro kuwa mutaqiintaa ee soonka uu gaadhsiiyey khayrkana waafajiyey kana aqbalay ilaahay aan weydiisanno ducada aan ku dadaalno walaalayaal nafteenna aan u ducaynayno duriyadeenna iyo owlaaddeenna aan u ducaynayno xaasaskeenna aan u ducaynayno waalidkeen inta noolna ilaahay cimrigooda inuu dheereeyo cibaado iyo taaco rabbina ku camiro wakhtiga inta oga hadhay inta dhimatayna ilaahay naxariistii janna inuu ka waraabiyo aan u ducayno ducadaas aan ku dadaalno wakhti kale guur aha lagu jiraa xaq iyo baadilka muddo siraac uu kusoo dhex jiray dadka muslimiinta ah guud ahaan aan qalbiga ku wada qabanno una ducaynana in ilaahay khayrka inuu waafajiyo dadka muslimiinta aan ugu ducayno midnimo innagana aynu ku dadaalno innaga lafsadeenna ciddii ay cid khilaaf u dhexeeyo inay la heshiiso inay u tanaasusho dadka muslimiinta ah guruub iyo koox iyo wixii isu qaabilsan in ilaahay boggooda burcad isu marya hana loogu duceeyo hana laga shaqeeyo in sha allahu tacaala ha lagu talagalo ramadaanka inuu qofka hadduu ilaahay ku gaarsiiyo qur-aanka in aad ugu yaraan 3 jeer inaad dhammayso in sha allahu tacaala ninkii qur-aanka yaqaana ama akhrin yaqaana qofka aan qur-aanka ama jus ka yaqaana ama 2 jus ka yaqaanana 2daa jus inuu aada ugu celceliyo sidoo kale taraawiixda hadda xilligan 9ka la afurayaa 4tana waa la suxuuranayaa marka waqti dheerba ma haysataan fasaxna kuma jirtaan oo dad shaqeeyaa tihiin marka habeenkii in ragcado qiyaamuleyl ah la tukado iyadana ha lagu dadaalo in sha allahu tacaala maalinta dheer inta la sooman yahayna cibaadada ilaahay iyo qur-aan akhriska ha lagu dadaalo ayaan dhihi lahaa dadkeennii aynu ka nimid ee soomaaliyeed ama qaraabo ha ahaadeen ama agoon caama ha ahaadeen ee dhibaataysanna siduu sheekh noo sheegay in sadaqaadka la badiyo sadaqaadkii awalba la bixin jiray in la badiyo oo la laablaabo ileen meeshan iyadaa waa meeshii nabiga sala allahu calayh wasalam sida gaarka ah oo u tilmaamay in sadaqada la aqbalayo isaguna uuba camaliyan u samayn jiray oo uu aad wax u bixin jiray dabaysha ayuu oga degdeg badnaa khayrka nabiga sala allahu calayhi wasalam jawaad buu ahaa mid gacan furan buu ahaa sadaqadana ha lagu dadaalo hada wallahu aclam wsali allahuma calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin jazakum allahu khayran culimmada allaha miisaan xasanaadka yowma alqiyaama allah uga dhigo annagana allaha naga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsano jazakum allahu khayran barnaamijkii koobnaa oo ramadaan ku saabsanaan intaasu nooga egyahay baaraka allahu fiikum jazakum allah salaam